munaasabad simay qaamkayga aad u sareeya loo soo agaasimay isla markaasna ay ku qalinjibinayeen dufcadii shanaad ee ka aflaxda dugsiga sare ee Saacadiin School ee degmada Saylax ayaa waxa iyagu ka soo qayb galay gudoomiyaha dowladda hoose degmada Saylax Saacad Dahar Cige iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Saylax Cilmi Sahal Farax qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylax isku duwayaasha laamaha kala duwan ee degmada Saylax وقال odayaal dhalinyaro iyo marti sharaf kale dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadan ayaa waxa ay dardaaran u jeediyeen ardaydii guud ahaanba ka aflaxday dugsigan sare ee Saacadiin School ee degmada Saylax sidoo kale waxa iyaguna meesha si weyn uga dhex muuqday ururka Ramad oo ah isagoo ururka gacanta ku hayo dugsiga sare ee Saacadiin School ee degmada Saylax isla markaasna ah ururka ku bixiya ardaydan ka aflaxday guud ahaanba secondary school ee degmada Saylax muruq iyo maalba waana ururkii gacanta ku hayay ilaa intii la asaasay dugsiga sare ee Saacadiin School ee degmada Saylax mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa waxay guud ahaanba iyagoo hadalka iska daba qaatay ay dardaaran u jeediyeen ardaydii ka aflaxday guud ahaanba dugsiga sare ee Saacadiin School ee degmada Saylax iyagoona si weyn u amaanay ururka Ramad oo isagu ah ururka suurageliyay isla markaasna soo saaray ardaydani guud ahaan ka aflaxday dugsiga sare ee Saacadiin School ee degmada Saylax munaasabadan ayaa waxa ay sanadadii hore ay kaga duwan tahay isla markaasna sanadkan lagu soo casuumay ardaydii ka baxday dugsiga sare ee Saacadiin School ee degmada Saylax isla markaasna ka soo kala qalin jabiyay jaamacadaha Itoobiya iyo sidoo kale jaamacadda Hargeysa University sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay isku duwaha waxbarashada ee gobolka Nislan Xasan Cumar Barqad mas'uulkii ugu dadaal badnaa intii soo martay isku duwaashii ka horeeyay joogay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Nislan ahna isku duwaay dadka degmada Saylax aad ugu amaanaan shaqada uu hayo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah sida tan ana ka dhibixina gobolka meeshii aad wax ka barateen ka bilaabay dugsiga sare waa Saylax kulli dadku marka wax ka bartaan meelaha dhaqaalaha biskir taganaha baxsanin oo dhulka kala ku noqonin waxaan leenahay ka dhex shaqeeyo gobolka 2011 ayaan bilownay hawshan maanta ah xilliga laga bilaabo ilaa maantana horumar weyn ayaa ka socda ilaahay baa fadliga iska leh inta ka dambaysana dhammaan mas'uuliyiinta gobolka Salal aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin amaana ku leeyihiin isku ka garab taageen waxa mudan inaan maanta ku darno xudasheenan abayaashii iska lahaa dadaalka kulli wixii ku soconay hariya habeen waxaydan Maxamed Cumar maanta aaboo yahay aad iyo aad ba ugu amaanay yihiin waxaan leenahay ilaahay maalinta qiyaamaha inuu miisaanka xasanaadkiina idin ku daro dadaalka iyo hawsha iyo tacabka faraha badan wixii aanu daalaynay inaad aragteen mudhihiisi maanta oo waa ka rag iyo hablaba qaybtii koobaad maanta ay jaamacadda ka soo baxday oo rajaynayno in ay mas'uuliyadii la wareegaan ururka Ramad oo soo kordhiyay aqoon aad iyo aad miisaan u leh sanadka ka dambeeya waxaanu ka muuqanaa dhammaan gobolada Soomaaliland iyagana waxaan leenahay jasaakumullahu khayr halka kal shanaad waa taagnaa waxbaan arkay maantana waxbaan arkaya kal shanaad madaxweynaha loo yimid halkan waxbaan arkay maantana waxbaan arkayna ilaahay baa horta mahadaale waxa kaloo mahadaale oo ifada iloobayn oo maantana farxadaan u dhimanaya ragga ku soo dadaalay ururkii Ramad ee ku soo dadaalay inta soo gaarsiiyay maantana sii wada waxa soo sameeyeen kullay dhabar adeeg badan samir badan iyo adkaysi badan dabadeed ayaa waxa ay aad soo gaadheen maanta inaan nidhaahno hambalyo sida xusida mudan gaar ahaan dhalinyarta ka soo qalin jabisay jaamacadaha waxa ay ka soo gudbeen maraaxil aad u adag iyo caqabaad badan sucuubaad badan barashar badan oo ila soo kulmayeen dabadeed weeyi waxa mudhahan maanta ay goosanayaan oo ah inaan kala qayb galno farxadooda kullay waxaan leeyahay
dadaalkii badnaayeed samayseen kumaydaan khasaarin. gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa isagoo halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dowladda hoose degmada Saylac Saacad Dahar Cige isagoona ballan qaaday inuu mid kamid ah uu shaqaaleysiin doono ardaydii ka soo qalan jibisay jaamacadaha Itoobiya iyo Hargeysa University si uu u dhiirigeliyo ardayda ka qalan jibinaysa sanad kasta dugsiga sare ee Saacadin School ee degmada Saylac. waxaanu u baahnayn inuu macallin ka noqdaan ugu baahnayn waxaanu u baahnayn inuu mas'uuliyad kale ka qabtaan u baahnayn aad baad igu soo dhaweynaa runtii waxaan leenahay soo dhawaadaan leenahay insha Allah ta'ala kullay annagu caafimaad kama shaqeyno laakiin cid waxaan ka shaqeyno waxaanu u baahan qaadan doonaa hadii ilaahay arday say dhiirigelin u hesho hal arday baan qaadanaynaa ama engineer ha soo barto ama maamul kale ha soo barto kullay wasaaradaha kale dalkana waxaan rajaynaynaa iyadoo maanta madaxweynuhu maanta kullay una daawanayo arkina doono in wasaaradaha kale nimadaasi nin wasaarad kasta qof qaadato hadii ilaahay ilaaho si ay kuwa ka dambeeya ay dhiirigelin u helaan وعلي أحمد ديري علي دقدرل adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida